السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيان ومقال كله يا أنيقو سايب تحيا ما أنت إن شاء الله مقال كنا وحنا كي إيجي دونا هبك أجو ونأكسن يقفك وأبرن كرايا فقارك هذا الكا فقارك هذا الكرنتي وحرفضها أنيقو كرنتي كي أنفعي أنا حستواجي عن دكسي جلي عن دكسي كشري intermediate كا grade 7 يو 6 يو 8 عن كشري marka la yeeray la igu dhaho abkaalay daabuurka ka soo jeedi nashiidooyin yar ama dadka wax u sheeg wallahi beenidii ma sheegayay anigoo gariiraya oo dhiisku sayga soconayo ayaan soo fadhiisan jiray inuu qofku caadooyinka fagaara ka hadalka yeesho ama skill kan uu yeesho runtii aad bay muhiim u tahay waana waxyaabaha guusha kugu hogaamin karaya oo maanta markaad meel timaado oo aad doonayso inaad bulsho la hadasho bulshadaada fikirkaaga ka dhaadhicinaysaa oo adigu sad wax u arkayso ee bulshada u sheegaysa kaba soo qaadba contract ba doonaysa inaad shirkad la saxeexato shirkadii waa inaad ku qanciso inaad runtii adigu tahay qofka idealka ama qofka loo baahan yahay inuu shirkadda maamulo sidaad marka qofka ugu sheegaysa hadana qofkii aanad qancin karaynin oo aanad u sheegi karaynin inaad runtii adigu aad tahay ama anigu yana farta isku fiiqanay aad adigu tahay runtii qofka u qalmeeyay shaqadan maanta muuqaalkeena waxa kugula wadaagi doonaa tipska ama nambarada aan raaco si aan u noqdo qof runtii fagaara ka hadalkiisu dadka u cajabiyo muuqaalkana deedii soo diyaariya waayo kamaradu iyadu waxay la mid tahay baasad yani bulshada la hadlaysid marka insha Allah muuqaalkana mid kula wadaagi doonaa pointka koobaad ee loo baahan yahay inaad adigu isweydiiso inta aanad waxba bilaabin waxa weeyaan waa inaad si wacan u diyaarsato mowduuca aad ka hadlayso kaba soo qaad waxaad ka hadlaysaa science baad ka hadlaysaa ama waxaad ka hadlaysaa history baad ka hadlaysaa qof yani bariyo hore dhintay oo waxyaabaha sameeyay waa inaad diyaarsato waxaad ka hadlayso mowduuca aad ka hadlayso waa inaad diyaarsato yani qofku hadaan mowduuca diyaarsanna de hadhow meesha gabagaba iyo qababa iyo waxba soo gelaya marka mowduuca waa inaad diyaarsato mowduuca habkeebeen u diyaarsan karayna marka su'aashaasi waa su'aal loo baahan yahay yani mowduuci kaba soo qaad waxa doonaysaa diyaarsan habkeebaad u diyaarinaysa ilaa waxa jira hab loo diyaariye kolka aad doonaysaa inaad mowduuca aad diyaariso su'aasha koobaad ee loo baahan yahay isweydiiso waxa weeyaan maxaad doonaysaa inaad bulshada u sheegto maxaad doonaysaa dadkan ku soo hortaagan inaad u sheegto ilaa dadkan dhagaxaan ma aha waxay doonayaan inay wax ka faa'iidaan maxaad u sheegaysaa yani waa maxay waxaad doonayaan inay ogaadaan yani qofku kaba soo qaad iskuulka baad ka hadlaysaa ardaydan aad la hadlaysaa maxay doonayaan inay ogaadaan beed dhiirigelinaysaa ma wax ka dhiman baad u sheegaysaa maxay doonayaan inay ogaadaan runtii waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah qodobka labaad ee aad mowduuc u diyaarin karayso waxa weeyaan in mowduucaagaasi xaqaa'iq ku fadhiyo يعني وين حقيقة كهذا وين تسوق كل شيكوين علم بارس تصاليال وحيا برهم تيجي قفكة قرأت كيسون وأقبل كرايو حتى تسكتر هذا كورن كل سجال بقول إياه طبعاً كي أنا جو سجاشن شراء أيان كم من نقطة يدت كي civil war كي مريكا كده قالمي ودمر كادو روبوت باته مثل ماشين باته وانا waxaad doonaysaa bulshada inaad u sheegto waa inay xaqaa'iq ku fadhiyaan sheekooyin cilmi baaris tusaalayaal kadib mowduucaaga markaad diyaariso ee aad sida ugu wanaagsan loo diyaariso oo aad mowduucaaga xaqaa'iqdu ku fadhiyo oo mowduucaaga aad isweydiiso su'aasha ah maxay bulshadu doonaysaa inay ogaadaan waa inaad u gudubto qodobka labaad oo ah waa inaad khudbadaada ama sheekadaada ama waxaad doonaysaa inaad jeediso waa inaad nidaamiso waa in waxaagu chronological order uu leeyahay waxaagu waa inuu ku nidaamsan yahay oo haddaba sidee u nidaamin karaynaa wasaar runtii iyaduna aad iyo aad u muhiima marka aynu doonayno inaynu mowduuceena ama khudbadeena aynu nidaamino oo aynu order u yeelno su'aasha ugu muhiimsan ee la doonayo waxa weeyaan waa inaad mowduucaaga waa inaad qodobada ugu muhiimsan leh aad soo qaadato qodobada ugu muhiimsan leh waa inaad soo qaadato kaba soo qaad waxaad ka hadlaysaa qaadka waa inaad marka horta ka hasho waa maxay qaadku waa maxay faa'iidada qaadku waa maxay khasaaraha qaadku waa maxay khasaaraha dhaqaale waa maxay khasaaraha bulsho waa maxay khasaaraha nafeed waa maxay khasaaraha maaliyadeed qofku khudbadiisu waa inay u nidaamsan tahay oo waa inuu mowduuciyada ama pointska ugu muhiimsan leh waa inuu soo qaato oo uu kadib dadana qofka dhageysanaya waa inuu dareemo inuu qofkani marba jaranjaro ka gudbayo jaranjaro kala aadayo oo marba mowduucii ku sii dhawaanayo xaqaaqidiisii qodobka labaad ee loo baahan yahay inaad isweydiiso waxa weeyaan dadkan aad la hadlaysaa wadad noocma kaba soo qaadba bulshaad la hadlaysaa bulshadani ma arday baad la hadlaysaa yar ma dad waaweyn baad la hadlaysaa business owners ma waxaad la hadlaysaa asxaabtaada waayo mid walba hab gaara ama lahjad qaara wax lagu sheega waa inaad isweydiiso ama aad ogaato bulshada ama dadka aad la hadlaysaa wadad noocma ma ciyaal yar oo ardayaba ma dad waaweyn oo ganacsatayaalaba
ma waxa weeyaan ma asxaabtaadii kula age-kaaba waayo qayb walba qaab gaar ah ayaa wax loogu sheega oo laajad gaar ah ayaa loo isticmaalaa de maanta arday yar markaad la hadlaysid kalama hadlaysid mawduucyo waaweyn waayo waxan waa arday ma fahmayaan luqad Soomaali kelmado waaweyn isticmaali maysid markaad la hadlaysid dad waaweyn oo ku soo sharfay mawduuc ciyaalnimo kalama hadlaysid marka waynaad ogaato bulshada la hadlaysa waa bulsho noocma qodobka su'aasha markaad isweydiiso su'aasha kale loo baahan yahay inaad isweydiiso sad mawduucaaga u nidaamso waxa weeyaan dadka waa inaad nuxurka kala hadasho war dadkan ku soo eegay ee ku soo يعني ku dhageysanaya waa inaad nuxurka kala hadasho qofka fadhiya waa inuu dareemo inuu wax ka fahmi karayo ama inuu wax ka faa'iidi karayo adiga oo qofku waxa weeyaan meesha aan waxba ka faa'iidi karaynin runtii ma fadhiisan karayo haddaba imka mawduucaaga waad soo diyaarsatay waad soo nidaamsatay waxa qura hadhay inaad dadkii hor tagto oo aad jamhuurkii aad la hadasho haddaba su'aasha waxa weeyaan asluubkeeba dadka wax ugu sheegaysa asluubkee ama qaabkeeba dadka wax ugu sheegaysa qaabka runtii dadka wax lagu sheego way kala duwan yihiin dadka qaar way soo xifdiyaan dadka qaar way soo qortaan dadka qaar iyagoo runtii aan diyaarin bay iska yimaadaan dadka qaar kale qodobada ugu muhiimsan bay soo qortaan marka runtii anigu personal ahaan qodobka dadkuba jecel yihiin ama dadka fagaara ka hadalkoodu aadka u maarta u wacan yahay jecel waxa weeyaan qofku inuu qodobada muhiimka ah soo qorto haddaad soo xifdidid maxaa kugu dhacaya de waxa noqonaysa robot meel la soo istaajiyo wixii lagu shubay uu ku hadlaya oo qofku waxa laga yaabaa inaad ilowdo maanta dhan aad taa waxaan idin sheegayaa walaal waxaan idin sheegayaa in deeqaadku ma aragtaa yahay waxyaabo deena waalayo oo waxaas war waa bahasha soo xifdiid haddaad soo xifdido waad kala ilaawaysaa haddaad soo qoratana ay contact-kii dadka body language dadka kula hadlaysay aad ma aragtaa qofkii eegaysay ayaa ka lumaya oo maanta dhan waxa noqonaysa qof ku sii jeedo bahalo ama mobilkiisa marka waxaynu u baahanahay inaynu ogaano in qaadku ma aragtaa yahay mushkilad weyn oo maanta de qoysaskiiba de baabi'isayo de qofkiiba maada eegaya dadka mobilka wuxuu sheegaysaa bulshada ku soo horfadhiyay wuxuu sheegtay Soomaa wanaad eye contact wanaad qofka indhihiisa eegto meel qurana waliga ha ku qalale yani mistakes ay dadku sameeyaan kamida marka lagu dhaho eye contact samee ama qofka wana dadka eegtaa qof qurbu maanta dhan ku qalaa ma waxaynu u baahanahay ma qaadku waa mushkilad war dadka qof quraha ku dhagagid wana dadka saaweer qaadku waxa weeyaan waa problem in wada haysta qofka wana dadka indhaha u qaybiso qofkan kow adiga mushkilad bay ku noqonaysaa oo meel qura focus ka saaraysa qofkan ku soo horfadhiyana mushkilad bay noqonaysaayo oo qofku maanta dhaxonay wareede bismillaah wanigu muxuu sakabadu waxa ku artay maxaa ka khaldanayo maanta dhan bal wakaasado qof ku eeg maanta dhan xoranayaan iyo waxba iga khaldanay martalo ma dhexdaanan iska giijinayo ma garat marka qofku waa inaad dadka wada eegto waa dadka eye contact aad samayso marka asluubyada ama qaababka loo bilaabo runtii anigu waxaan ugu jecelahay inuu qofku ciwaanada muhiimka uu soo qorto kadib dadana ciwaanku uu qofku saa weegaya kadib dadana uu hadlaya oo de xogti kale isaga ahaya marka xogta asluubka ama qaabka aad u bilaabayso marka doorato waa inaad jamhuurka waa inaad dadka maarata meesha fadhiya waa inaad soo jeediso waa dadka attention-koodu maqan yahay waa inaad dadka attention-kooda waa inaad soo jeediso taa aniga meesha taaganay soo maxaan leeyahay in maadeeraya qaabkii baad loo soo jeediyaa qofka attention-kiisa qaabka loo soo jeediyaana ku sheegaya waa inaad muuqaalka dee la garayso ma fahanti waxa la garay dad laakiin waan ku sheegayaa qaabka ugu wanaagsan ee qofka attention-kiisa loo soo jeediyo waxa kamid ah qofka inaad sheeko ku bilowdaba bari aan yaraaba waxa jiri jirtay inaan mii u safray qof kasta wuxuu doonayaa sheekada inuu dhageysto waxa weeyaan sheekadan bilaadanku history-ga ama waxyaabo qisaska way dhageystaan Allah subhanahu wa ta'ala runtii quraanka marka akhrinayso inta badan waxa uu badan waa qisas قصة النبي موسى قصة النبي آدم قصة النبي الله يحيى عليه السلام قصة النبي إبراهيم يعني إلهي سبحانه وتعالى وحدنا إنه قلوبتنا سوت شيء أو سمايا إنه فهمنا وحنا الله سبحانه وتعالى إن قالها اللي يدينتن ورنتي ما أعرف إنه بدبادين وتاي أيو الله سبحانه وتعالى ونوسو شيء دنيا وأتنشن كأنه كل شيء دنيا مركا قفك إناد history وشيكته أما أتشيكه واحد عاي قفك ألو ذاكته runtii attention-kiisa soo jeesanaysa oo waxa isku dayaysa qofka inuu ku soo jeesto qodobka labaadna waa qodobka aanay dadku jecelayn laakiin adigu hadaad ku bilowdo waa alxamdulillah qofka attention-kiisa soo jeesanaysa laakiin dadka ku soo dhageysanaya way yara salbabaxaya waa inaad ku bilowdo inaad su'aal weydiiso hadaad cashay walaal halkaas maxay ahayd maxaa looga jeedaa chronological order dadana qofka
ha magacaabin imka caashaan ha magacaabin qofka inaad magacoodo ma aha waa inaad tiraahdo ha su'aasha ka jawaabaya su'aalba qofku markuu maqlo xoranaya hay armeeshan laygu ceebayna taasoo 150 indhood bay soo eegay meeshan yaan ku ceeboobini marka qofku wuxuu dareemayaa inuu soo jeesto su'aasha ha weydiinba su'aashaasaan idin weydiinaya anaaba ka jawaabayba adigu isaga jawaab qodobka saddexaad ee qofka attention-kiisa loo soo jeediyo waxa weeyaan inaad cilmi baaris ku bilowdo oo maxaad oranaysaa sanadii 1970kii research laga sameeyay wadanka Netherlands waxa la sheegay in qofku soo jeesanay wuxuu doonayay inuu cilmi baarista ogaado niyo maxaa la yiri maxaa la sameeyay kadana dadkii attention-koodii waad haysataa mawduucaagina waa ku free inaad bilowdo inta aynu ku jirno hababka loo bilaabayo mawduucaaga runtii waxa muhiim ah inaad dadkoo dhan markaad meesha timaado inaad dadkoo dhan wada salaanto wataa salaamu calaykum waari warrama maxaa la hayaa waana oran doqura waar walaal cali ismaaciili warran waar maxaa la hayaa ka waran reerkii waxyaabahaas waa mamnuuc waa inaad dadkoo dhan waa inaad wada salaanto qodobka runtii kale isaguna soo hoos galaya haween waana iska ilaaso cudurdaarka waana tiraado marka soo meesha soo istaagto tiraado assalaamu calaykum waari warrama alxamdulillah waana oran maanta runtii iga raali noqdo waqti badan maan haysano موضوعنا aad buu adag yahay war cudurdaarka macal adigu aan soo waxba aan soo qoran cudurdaarka iska ilaali runtii anigu waagan ku jiray dugsiga inta ugu badan caadooyinka iminka runtii caadada xun aan iska jiri kari waayay aan ka wada waxa weeyaan caadada dib dhigista la dhaho oo waxaan sameyn jiray kala soo qaadba mawduuc baan loo diraayo waxa doonayeen la soo jeediyo presentation laga sameeyo waxaan ahaa ninka saacada ugu dambaysa wuxuu yara eega waan xastaayo maalin mawduuc loo diray waan iska seexday waan horta waan yara xanuustay waan iska seexday kadibna ma ogeyn bas waa maanta mawduuci waan iska soo kacay de waxa doonto khaamahaaga samayso macal ha oranin maanta xubnaan soo diyaarin ha oranin wanaad wax cusub la timaado adigu wanaad tiraado abti mawduucan buugaag baan ka soo akhrinaynaa dhageysta ma fahanti marka wanaad qof adag iska dhigto oo aan dadka cudurdaar la iman oo tiraado waxaasaan maartay iga khaldano xamaan soo diyaarino waxyaabo deniica wana laga garan wana taynin ad geed adayga qodobka afraad ee runtii fagaarka hadalka aadka ugu muhiimka waxa weeyaan inaad mawduucaaga u soo gudbiso si soo jiidasho leh waxaan uga jeedaa sidaba loo soo jeedinayaa maxaa de qof anigu soo jiidasho waxaan maqli jiray qof soo jiidasho leh hadalkaygu soo jiidasho u yeelanaya hadaba ana kula wadaagayeen abti qofku habka uu mawduuciisa u soo jeediyo hadduu soo jiidasho leeyahay hadduu xun yahayba waa halka mawduucaaga saameynaysa ama fagaarka hadalkaaga saameynaysa وين dadkan ko horta marka ugu horeysa markaad mawduucaaga doonaysaa si soo jiidasho loo gudbiso waa in muuqaalkaagu waa inuu qurxoon yahay waa in aad ku iman macawiis yar oo aad dhexda ka soo xidhatay iyo waa in aad waxa ku iman waa in muuqaalkaaga iyo outfit-kaaga guud ahaaneed anu kama hadlay physicalkaaga waa in dharkaagu uu qurux badan yahay waa in dharkaagu uu qurux badan yahay ko taasi waa mawduuca koowaad ama qodobka koowaad ee mawduucaaga kaga dhigayso mid soo jiidasho leh qodobka labaad ee la doonayo inaad focus ka saarto waxa weeyaa waa inaad smile garayso waa inuu yaro qosasho oo la cadeysade ka waran waa maxay farqiga u dhaxeeya markaan saa leeyahay abtiyaal waxa la doonayaa in aad ka sheekaysaan waxyaabaha daqaadka idinku saliday iyo haddaan dhaho ka waran walaal haddaynu ku wada hadallo waxyaabaha runtii bulshadeena qaadka ku itixaamay ama inay cunaan aadka u sahlaya way kala duwan yihiin markaan saa soo leeyahay wad yaabaysa markaan laakiin ugu dhal cadeynayo de waxaad dareemaysaa inaad psychological safety baad dareemaysaa qofku inuu meel maarata meesha loogu talagalay uu joogu dareemaya qodobka labaad waxa weeyaan inaad hadalkaagu uu hadal dheer yahay waa inaanad noqon qof hadalkiisu gaaban yahay oo maanta oo dhan oranaya walaal demiyaan maxaan ka hadlaa hayo wallahi iskuulka in la aadaa waa muhiim aad bay muhiim u tahay walaal oo yaa ku maqlaya meed cidba ku maqlaysa meed cidba ku dhageysanayso markaad asxaabtaada la hadlayso aad la joogto sidoo kale u hadlimaysid sana maanta u hadlayo kale u hadlimaysid laakiin waxa weeyaan volume-ka in yar gaabinaysa oo saas kale u hadlaysa ariga warama saaxiibayaal waxa la hayaa alxamdulillah aad baa loo wanaagsan yahay laakiin markaad bulsho la hadlayso waa codkaagu uu soo dheeraado oo aad maarata bulshada de aad gaarsiiso waxaad ka hadlaysay kuma soo qaadin kaanu kamarada markaan la hadlayo de waa inaan maarata ila qof iga maqan ma la hadlaya waa inaan codkayga gaarsiiyo qofka kale ee doonaya maarata inuu de wax iga dhageysto marka insha Allah hadalkaagu ha dheeraado qodobada ku hoos jira qodobka afraad waxa weeyaan qodobka ugu muhiimsan kale waxa weeyaan waa inaad dadka ka qoslin karayso qofkan ku daawanaya ama qofkan meesha soo fadhiya waa inaad ka qoslin karayso
runtii qofka halkana waa halkay dadku ku kala tageen qofka fagaaraha ka hadlaya ama qofka mawduuc diyaarinaya ka hadlaya hadduu bulshada ka qoslin karayo qofkaasi ha ku daalin oo reeri qofka bulshada qalbigeeda u degi hadduu kaba qoslin karayaba ha ku wareerin ninkaasi tagi runtii bilaadanka Ilaahayna inoo kala sameeyay qofka ka qoslin karaya iyo qofka kale aan ka qoslin karay laakiin wanaad isku taxallujiso dadka marmarka qaar aad ka qoslin karayso oo attention kooda runtii aad qalbigooda furan karayso ka qoslin karayso qodobka ugu dambeeyay qodobka afraad ku hoos jiraan waxa weeyaan in mawduucaagu uu taxane noqdo mawduucaad ka hadlaysaa waa inuu jaran noqdo oo qofku marba dareemo inuu mid ka gudbayo mid kale u gudbayo oo uu dareemo qofku inuu wax faa'iideeyo qofku waa inuu dareemo inuu wax faa'iideeyo oo uu taxane yahay mawduucaad ka hadlaysaa qodobada afartaana haddaad raacdo iyo qodob hoosaadadooda dhan runtii anigu waxaan hubaa in fagaarka hadalkaagu aad maaragtaa isu bedeli doono marka qodobka shanaad intaan aynu gelin de warqad baan soo dhigi doonaaba PDF aad kala digi karaysaan xagga hoose oo anigu aan diyaariyay oo maarta mawduucan aan ka diyaariyay safagaaraha lagu hadlo marka waa afartan waa shantan qodob iyo qodob hoosaadadooda ku qoran oo aad isticmaali karayso marka insha Allah xagga hoose aad kala digi karaysaa qodobka ugu dambeeyana waxa weeyaan waa inaad mawduucaaga u gabagabayso si wanaagsan runtii habka aad mawduucaaga u bilaabayso iyo habka aad u gabagabaynayso waa labada ugu muhiimsan qofku haddii uu ka dareemo mawduucaaga markaad bilaabayso habayacsanaan iyo waxyaabo ka khaldan iyo attentionkiisa ku siin maayo haddii markaad gabagabaynayso qofku uu fahmi waayo waxaad ka hadlaysana dhammaan khudbadaadii muu fahmin marka labadan runtii qodob waa labada ugu muhiimsan haddaba sidee mawduucaaga loo soo gabagabeeyaa mawduucaaga waxa loo gabagabeeyaa adigoo muhiimadda ubuucda qodobka aad ka hadlayso kusoo gabagabeeyay ama hadal xasuusan karayo soo qaad beenaad qaadka ka hadlaysay markaad ka soo hadashay qaadkii mawduuciisa oo dhammaan inaad kusoo gabagabayso runtii daawadayaal qofka qaadka cunaa horumar dhaqaale mid nafeed mid bulsho mid adduunyo iyo mid aakhiratoona ma gaadho runtii waa statement yar oo aad u saxan oo runtii qofka qalbigiisa ku sii dhibcayso markuu ka dareeray meesha oranaya wallahi waa runtii aad iyo aad baad u mahadsantihiin maanta intaasaan jeclaysay inaan idila wadaago intaan muuqaal lamid ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan salaamayaa muuqaalkana asxaabtaada la sheer garee ila kulba waa taqaanaanin saa u gargariira marka lagu dhaho kale halkan ka hadale waar aad baan salaamayaa saaxiibayaal